tasyahan wuxuu ka mid yahay dadaaladii lagu midaynayay faraxgelinteeda ayuu ka mid yahay. waxaan leenahay inaan midownaa murugay u tahay cadowga. inaan kala tagno kala go'naanaana waxay cadowga u tahay farax. waxaan rajaynaynaa biidni illaahi alkariim midnimada noo bilaabatay ilaahay inuu noo daa'imiyo, inta noo dhimanna aan si wanaagsan u dhammaystiranno, annagoo midana aan u midowno cadowgeenna. inta ay naga haystaan aan ka saarno, Soomaaliya oo dhan aan ka saarno. markaasaan si fiican u dabaaldegaynaa, isbahaysigeennuna u weynaanayaa. wax alla wixii aan soo marnay ee dadaallo ahaa mirihii laga guranayay waa midii ay isugu yimaadeen maanta beesha caalamka iyo bahda Soomaaliyeed. caawana aad u dabaaldegaysaan. waxaan idin dardaarmayaa sidii aan taqwada Ilaahay idinkugu dardaarmay midnimo iyo gacmahood isqabsataan. waxaan idin dardaarmayaa walaaltinimo. waxaan leenahay cafa allaahu camaa salaf. waxaan leenahay midnimadeennu waxay farax gelinaysaa Soomaaliya oo dhan ayay farax gelinaysaa. cidda ka naxayso magaca Soomaaliyeed sheegadaysana waxaan leenahay muutuu biqaydikum baan leenahay. waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay inuu munaasabadan caawa fadhiyo madaxweynihii Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, madaxii ugu sarreeyay dowladda Soomaaliya ah. waayaha kanna shacabkii doortay uu dhex marahayay, caawana uu dhex fadhiyo shacabkii habeenkii la doortay u dabaaldegay iyagoo haddana dabaaldegaya. waxaan leenahay mar haddii nicmo lagu siiyo waxaa lagu ilaashadaa shukri. xarig baa looga dhigtaa oo lagu qaydaa oo lagu dabraa. ilaahay subxaanahu wa tacaalaa dowlad la-aantii uu naga bixiyey ee dowladdii Soomaaliya uu noo taagay, ilaah baan uga xamdinaynaa. mudane maxamed cabdullaahi farmaajo asagana doorashadiisii ilaah baan uga xamdinaynaa. waxaan leenahay mudane marada dhexda ku xidhaan leenahay. cadowga maanta Soomaaliya ibaadinaya oo baabi'inaya oo caaqil iyo carmali iyo carruur iyo cood aan midna dhaafayn, in dalka laga saaro laga baabi'iyo adigaa mas-uuliyadda ugu sarreyda kaa saaranta. annaguna waxaan nahay garbahaagaan ku noqonaynaa. waxaad ogtihiin dagaaladii ugu badnaa ee Soomaaliya ka dhaco nimanka lagula dagaalamay waxay ka dhaceen gobolladan. albaabkii ay mari waayeen ee ilaahay adkeeyey ahaayeen. waxaan rajaynaynaa mar haddii dowladda federaalka ay taageerto oy gacan siiso inay ka guulaysanayaan cadowga Soomaaliya baabi'inaya.
waayo gobolladan waxay uga xoreeyeen isku tashi ay isku tashadeen ee dawlad taageeraysay ama mid dhexa ha noqoto ama mid ajnabiya ha noqotay ma jirin. marka haddaan isku tashanno waa iska xoreyn karnaa, waana isku tashanaynaa. dawladda federaalka Soomaaliya oo madaxweynihii nala joogana taageeraan uga rabnaa inaan iska zuulino nimanka walaalaha ay madax furashada u haystaan ee dhibaatada ay ku hayaan in laga kor qaado. dadka ay sugahayaan waa intiinaan iyo in idin lamid ah. waa inaad u diyaar garowdaan sidii looga xoreyn lahaa deegaamada ay hayaan, nafis loo sii lahaa dadka ay madax furashada u haystaan. waxaan leenahay maanta uma baahna Soomaaliya wax yar yar in la isku haysto, uma baahna iyadoo waxaas dadkii ay qalayaan oo ummaddii ay baabi'inayaan. wax ka weyn baa na saaran, mas-uuliyad ka weyn baa na saaran. waa in mas-uuliyadeenna aan ka soo baxnaa. waxaan leenahay caawa galmudug madaxweynaheedii baa fadhiya. waxaan rajaynaynaa asaguna wayga odaysan yahay, aniguna masaajidda anuga dhowa. marka caqli iyo cilmiba waa isku kaabaynaa insha allahu alkariim. caqli iyo cilmiba waa isku kaabaynaa. waxaan rajaynaynaa labadeennuna ciroolayaalaana. waxaan rajaynaynaa ummaddu inay u baxdo hadda kadib caano iyo baraaro inay u baxdo. waxaan leenahay aduunkuna na taageera, nagu taageera toosin. wixii aan ku gafno oo aad aragtaan naga toosiya. waasannahayo ma gafna dhihi mayno. dadka oo dhami waa gafaan buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam. kullu bnu aadam khadaa' wa khayru lkhadaa'iina tawwaabuun. dadkoo dhan way gafayaan, kuwa gafana waxaa ugu khayr badan kuwa tooba keeno ilaahay u noqda. midkii noqon diidaa naar buu gelayaa. marka kuwii markay gafaan ilaahay u noqda, ilaahay ha naga dhigo. waxaan leenahay marka aan garbaha isqabsanno, gacmaha isqabsanno, maalkeenna iyo muruqeennana aan midayno, cadowga aan iska dhicinno. dawladda federaalka ee beesha caalamka hadday nagu taageeraan, fadaaka hadday nagu taageeri waayaan, waa isku tashaynaa. dawladda federaalka waxaa laga yaabaa annakoo wax badan u malaynayna iyada lafteedu gaajo inay baktinayso. waxaan leenahay sida annaka lafteenna naloo colaadinayaa loo colaadinayaa iyakana. waa ka wada baxaynaa, waxna waa isku darsaynaa. waxaan rajaynaynaa biidni illaahi alkariim bahda Soomaaliyeed inay guulaysataan rajaynaynaa. islaamka oo dhan inuu guulaystaan rajaynaynaa. cadowga annaka haddana haystana waa mid la wada arkay, la wada zuulinayo. kuwii iska hor zuuliya ilaahay ha naga dhigo. waxaan leenahay dadka u taagan difaaca dalka, ilaalinta amniga iyo shacabka, ciidamada xoreeyey
dhulkan aan caawa ku soo jeedna dhexdiisa ayakana waxaan leenahay axsantum axsana allahu ilaykum baan leenahay waxaan leenahay waad wanaag samayseen ilaahay ha idin wanaag sameeyaan leenahay rag iyo gabdhaba waa inaan garab istaagnaa meel kastay joogaan maal iyo muruq iyo mahadnaqbana aan ku garab istaagno waxaan leenahay sidaas oo kaleeto dowladda federaalka Soomaaliya waa in aan garab istaagnaa maamul goboleedyo ayaa jira waxaan ballan qaadaynaa inaan garab istaagno madaxweynuhuna hadhow uu ballan qaadi doono inuuna garab istaagayo maamul goboleedyaduna waa noo ballan qaadin inayna garab istaagayaan maadaama ay kuwana naga dhallin badan yihiin kuwana ay dadaal dheeraadana dheer yihiin marka waxaan leenahay mudane madaxweyne ku soo dhawaaw galmudug oo midowday oo garabkaaga u fadhiyo madaxweynaheedii annaguna asagaan u kaalmaynaynaa insha allahu alkariim shukran lakum wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu